Bismillahirrahmanirrahiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono khilaafka soo cusboonaanaya ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. haddaba warbixintan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona shirqool culus oo ay maleegayaan Fahad iyo Farmaajo. shirqoolkan waxaa loo maleegayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa soo dusiyay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo iminka gudoomiyaha xisbiga SAN. haddaba Cabdikariin xogtan uu banaanka soo dhigay ayaa warbixintan daawadayaal ku eegi doona. sidoo kale daawadayaal waxaan warbixintan idinku jarjari doonaa sida uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaga hortagi doono duufaan ku soo wajahan. warbixintan waxaa ku eegi doona daawadayaal xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya iyo khilaafka soo kala dhaxgalaya xafiisyada Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble. hayeeshee intaan guda gelin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka Furata Gambarka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana ra'iisul wasaare Rooble ma ka hor istaagi doona duufaanta ku soo wajahan. ila xogogaal ayaa sheegaya in hirkii labaad ee khilaaf u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Rooble iyo Farmaajo ka soo wajahan yahay madaxtooyada. khilaafkan cusub ayaa abuurmay kadib markii ra'iisul wasaaruhu raacadeeyay 7 xubnood oo ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay ku milmeen siyaasadda. Rooble wuxuu tallaabadan qaaday isaga oo ka jawaabaya xalaaleyntii kursiga hoob 67 ee loo boobay eedeysan Yaasiin Faray iyo habdhaqanka guddiyada siid ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed. hayeeshee go'aankaasi waxaa si weyn kaga carooday Fahad Yaasiin sida ay wariyeen ilo markaasi xogogaal ah oo ku dhow madaxtooyada wuxuuna ku goodiyay in uu jidgooyo u dhigi doono doorashada uu garwadeenka ka yahay Rooble. Fahad oo ah shakhsiga gacantiisa ku qoray inta badan xubnaha guddiga doorashada ayaa doonayay in uu xubnahan uu Rooble shaqada ka raacdeeyay xalaaleeyaan kuraasta Farmaajo loo boobo isla markaasina hor istaagaan kuwa Puntland iyo Jubbaland lagu dhaco. Fahad waa shakhsiga saameynta ugu xoogan ku leh guud ahaan guddiyada wuxuuna isniintii gudoomiyaha Fiid Maxamed Ciro ku amray in uu soo saaro waraaq lagu hakinayo doorashada inta laga xalinayo xiisada ka taagan guddiga khilaafaadka. diidmo ka timid qayb ka mid ah guddiyada siid waxa ay sababtay in waraaqda oo si weyn ugu faaftay baraha bulshada laga soo qaado waxba kama jiraan. waxaase la xaqiijiyay in uu qoray Maxamed Xasan Ciro gudoomiyaha guddiga doorashada Fiid. taliyaha ciidanka badda Cabdixamiid Maxamed Dirir oo Farmaajo ka dhigay sareeyo guuto horena uu mar ugu magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa si cad ula saftay Fahad iyo Farmaajo wuxuuna Rooble ku eedeeyay in uu boobay xaruntii ciidamada badda Soomaaliyeed. sida ay xogo hoose sheegayaan Fahad wuxuu xubno ka tirsan xukuumadda kula heshiiyay in ay qayb ka noqdaan curyaaminta hanaanka Hormuudka u yahay Rooble wuxuuna waraaq dhanka madaxtooyada ka socota la soo dhaxmarsiiyay wasiirka gaashaandhigga. sida cad Rooble hadda gacan kuma hayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo qayb ka mid ah taliyaashiisa ciidanka waxaana waajib ku ah in uu tallaabo qaado kahor inta aan isaga laga qaadin. waa sida ay qabaan dadka falaqeeya siyaasadda. Rooble waxaa hortaala in uu la xisaabtamo wasiirkiisa gaashaandhigga taliyaha ciidanka badda gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo gudoomiyaasha siid ee heer Galmudug iyo Koonfur Galbeed. waxaa jira warar kale oo sheegaya in haddii Rooble ku adkaado hirgelinta hanaanka doorasho ee uu rabo uu Farmaajo isku dayi doono in uu mucaaradka kala hadlo dhismaha dowlad markaasi midnimo qaran ah taas oo meesha looga saarayo xukuumadda xilgaarsiinta. mucaaradku qudhooda waxay hore u sheegeen in ay qaadaceen natiijada doorashada waxayna madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyeen in ay boobeen kuraasta baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamijyada channelka Nuxurka Wararka ee aan ku leenahay YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyay in channelkeena subscribe saarto Furata Gambarka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino.
sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo kamid ah qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa muxuu yahay shirqoolka ee Fahad iyo Farmaajo maleegayaan madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa Farmaajo ku eedeeyay in uu diidan yahay in dalka laga qabto doorasho liisla ogol yahay isla markaasina uu markii mushkilad iyo caqabad laga baxo abuurayo mushkilad kale maamulka Farmaajo wuxuu had iyo jeer caadaystay in markii mushkilad iyo caqabad laga baxo ay abuuraan mushkilad kale ayaga uga gon leh in ay dadweynaha ku jahwareeriyaan wadadana kaga leexiyaan inta kale ee ka soo horjeeda ay yiri Guuleed hogaamiyaha xisbiga Sahan wuxuu sheegay in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin maleegayaan qorshe lagu carqaladeynayo shirka uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta kaasi oo la filayo in golaha wadatashiga qaran ku yeeshaan caasimadda 27 bishan December aynu ku guda jirno sanadan 2021 waxaan ogsoonahay in haatan la maleegayo shirqoolo lagu doonayo in lagu carqaladeeyo shirka golaha wadatashiga lagu baaqay iyo saxitaanka la doonayo in lagu sameeyo habraacyada iyo habdhaqanka doorashooyinka ayuu qoraalkiisa ku sii daray hogaamiyaha xisbiga Sahan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda kale ee golaha wadatashiga qaran ayuu ugu baaqay in aan laga mashquulin lagana weecin jidka lagu saxayo hanaanka doorashooyinka waa sida uu hadalka u dhigay dalkani sida kaliya ee uu hore ugu sii socon karo horumar ku gaari karo nabad iyo xasiloonina ku heli karo waa iyadoo dalka laga dhaqan geliyo laguna soo dabaalo doorashooyin hufan oo laguna wada qanci karo ayuu yiri madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed Cabdikariin wuxuu ka mid yahay xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya oo ka hor yimid go'aanka mucaaradka ah in la joojiyo hanaanka boobka ah ee hadda wax ku socdaan wuxuuna taageeray kuraas lagu boobay Dhuusamare Baydhabo iyo Muqdisho sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya in Guuleed uu qayb ka yahay xubno mucaarad ah oo ka hor yimid in la qabto shir ay isugu imaanayaan waxgaradka Soomaalida kaasi oo musharaxiintu soo jeediyeen in lagu saxo qaladaadka ka jira doorashada Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay siyaasi qoonyar socod ah kaasi oo aan inta badan raacsaneen midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijka channelka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan laakiin oo saar subscribe inoo saar channelka faragan badalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii aad kala socotay ama aad ka daawanaysay channelka Xogta Media fadlan hadii aad daawatay muuqaalkan laakiin oo saar subscribe inoo saar channelka faragan badalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu reeb tan iyo warbixintan mid la mid